FT28, this is Fort Lauderdale. Do you read? FT28 to Fort Lauderdale, do you have a fix yet? kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel kasta aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha caalamka. barnaamijka usbuucani waxaanu ku soo qaadan doonaa mucjisooyinka dunida ay ka wareertay ee saddexagalka Bermuda. kontonkii sano ee la soo dhaafay 3,000 oo markab iyo in ka badan 100 diyaaradood ayaa ku dhacay oo aan dib loo arag. waxaana dhammaantoodba ay daadsan yihiin sagxadda hoose ee badda saddexagalka Bermuda, mucjisada Atlantiga. saddexagalka Bermuda waxa uu dhacaa amaba uu ku yaalaa inta u dhaxaysa xeebaha bari ee dalka Mareykanka, gaar ahaan xeebaha loo cadceedsiga taga ee Florida iyo jasiiradaha Puerto Rico, Bermuda iyo Bahamas. waxaana saddexagalkani badda ah lagu qiyaasaa ilaa 5 milyan oo square mile, waana badweyn maran oo aan lahayn wax jasiirada. Bermuda waa meel dadka iyo waxay wataanba ay ugu lumaan amaba loo waayo si argagax leh, mana jirto qeexitaan rasmi ah amaba heshiis lagu yahay. xitaa ma jiro wax la oran karo xal dabiici ah oo arrintaasi lagu sharixi karo. The Bermuda Triangle is a place where people disappear mysteriously, and it has no logical, no conventional, no natural explanation. balse saynisyahanada qaarkood waxay rumaysan yihiin in qeexitaan loo hayo mucjisada Bermuda, waxaana ay ku tilmaameen inay tahay cimilo aad u kacsan iyo mawjado waaweyn oo badda gudaheeda ka jira, taasoo ay ku sababeeyeen dabaylo u socda qaab wareega. waxaa kaloo ay ku macneeyeen inuu jiro magnad khalkhaliya maraakiibta iyo diyaaradaha. culimada saynisku waxa intaasi ay ku daraan oo ay ku sababeeyaan arrimaha meesha ka jira inay ka mid tahay dhibco hawaa oo markaasi ka soo baxaysa gunta hoose ee badda, taasoo qayb ka ah suuragalnimada in maraakiibta halkaasi maraysa ay rogmadaan. It is possible that bubbles from the ocean floor can sink a ship. meelaha qaarkood sida Miami waxaa jira dad ku maqan Bermuda kadib markii ay damceen inay ka war doonaan duuliyad diyaaradeed oo la waayay, kaas oo ka tirsanaa ciidamada cirka ee waddanka Mareykanka. baadigoobkaasina waxa uu sababay in la waayo 17 ruux oo howlgalkaasi raadinta qayb ka ahaa. markii howlgalkaasi la bilaabayna iskabada in duuliyihii la soo helay, waxaa baadigoobkaasi lagu waayay 27 ruux oo ka qayb ahaa howlgalka baadigoobka, kuwaasoo iyagana lagu waayay saddexagalka Bermuda. xeebta Miami oo ah mid ku taalla xeebaha bari ee dalka Mareykanka ayaa ah meel ay u soo dalxiis tagaan malaayiin qof. muddo haatan laga joogo 50 sannadood waxaa jiray duulimaad ay la socdeen 2 ka mid ah ciidamada badda ee Mareykanka, kuwaasoo diyaaraddii ay la socdeen ay ku sigatay in Bermuda ay ku dhacdo. 19 jiradan oo ah mataana aad isugu eeg, George iyo David Rothschild, waxa ay ku socdeen gurigooda kadib markii uu dhintay qof ka tirsanaa qaraabadooda. diyaaradda ay saarnaayeen ayaa waxa ay dhanka waqooyi ay uga soo duushay jasiiradaha isku xidhxidhan ee Florida, iyagoo markaasi sii dulmaray saddexagalka Bermuda. qiyaastii markii diyaaraddu ay dulmaraysay saddexagalka mucjisada ah ee Bermuda, caqabad ayaa soo wajahday duuliyayaasha diyaaraddaasi waday kadib markii ay shaqayn waayeen dhammaanba saacadaha diyaaradda lagala socdo ee ay ku jirto xitaa saacadda tilmaamaysay shidaalka. He said, I'm afraid we're going to run out of fuel. And he hollered to us, please look out the starboard window. What can you see? Look out the port window, go back and forth. duuliyihii diyaaradda ayaa ku dawaqay xaaladda, waxaana maamulka kala wareegay kaaliyihiisii. George iyo David waxa ay sheegeen inay dareemeen xaaladda duuliyaha soo wajahday, isagoo markaasi sheegay inaanu duulimaadka sii wadi karin, wax kastaana ay suuragal yihiin. The pilot said, I'm too nervous, I can't fly. So the co-pilot had to take over and continue with the flight.
And we were looking for some hope, something to see, but we saw nothing. All we saw was ocean. We were over the ocean. balse waxa ay sheegeen in ugu dambayntii ay badbaadeen oo diyaaraddu ay u cagadhigatay si caadi ah. When we finally got to Norfolk and they landed, then, of course, I was so happy. I kissed the ground, the dirt that we were on. As a matter of fact, Dave wouldn't fly in a plane for over 20 years after that. That's really, it's, yeah. kadib markii ay soo martay daqiiqado jihawareer iyo cabsi lahaa duuliyihii koowaad ee diyaaradda waday waxa uu galay xaalad waaliya iyadoo fikirkiisuna uu isbedelay maadaama ay shaqayn waayeen dhammaanba nidaamkii diyaaradda oo dhan manay garan karin waxa ay la kulmeen waxa uu ahaa mid ka mid ah khubarada duulimaadyada ayaa waxa uu sheegay in arrinta ugu muhiimsan ee hannaanka diyaaradaha khalkhalin karta uu noqon karo magnad dheeraada oo waxyeeli kara saacadaha iyo habka wareegga ee diyaaradda taas oo marka ay sii xoogaysataba sababi kara in diyaaraddu ay iswareejiso oo sidaasna ay badda ugu dhacdo. So if you don't believe the instrument and you believe your mind, guess what happens? You turn more right. And the more right you turn, the more vertigo sets in. You know, spatial disorientation is another word that we use to describe that. And it's hard to explain, but let me tell you, when it happens, it's a very scary thing. And vertigo, unfortunately, has killed people. And if you don't recover from what's happening and believe your instruments and get the plane straight and level, you end up crashing. And vertigo happens a lot more than we care to admit in this business. warbixinaha laga haya mucjisooyinka Bermuda waxa ka mid ah in celcelis ahaan sanadkiiba la waayo ilaa 60 markab iyo 5 diyaaradood oo Bermuda ku dhaca. arrimaha sida weyn loogu xusuusta Bermuda waxa ka mid ah muddo haatan laga joogo 50 sano in ka badan markii maalin kaliya ay halkaas ku daateen diyaarado badan oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Mareykanka. arrintaasi ayaa dhacday kadib markii ciidamada cirka Mareykanka ee saldhigoodu yahay gobolka Florida ee loo yaqaan Fort Lauderdale ay damceen inay qaadaan howlgal tababara oo lagu ogaanayo mucjisaadka qarsoon ee Bermuda. arrintaasina waxaa ka warramaya Gian Kusar oo wax ka qoray arrimaha Bermuda. It was 2:10 p.m. in the afternoon, December 5, 1945. 5 Navy waxay ahayd 2:10 oo duhurnimo December 5, 1945 waxaana ay ahaayeen 5 ka mid ah diyaaradaha wax duqeeya ee loo yaqaan TBM Never waxaana duulimaadkooda ay ku sameynayeen dhinaca badweynta Atlantiga. diyaaradda noocana waxaa loo xushay markaasi ay ahayd diyaaradaha wax burburiya tan ugu awoodda badan waxaana ay awood u lahayd inay ku duuli karto jawiga daruuraha furfuran iyo aragtida ilaa 12 mayl meel u jirta. 5taasi diyaaradood ee qaybta ka ahaa duulimaadka 19aad waxa ay u jihaysteen dhinaca Bermuda oo ku taalla badweynta Atlantiga waxaana saarnaa 14 xubnood oo ka mid ah ciidamada Mareykanka sida ay muujinayaan muuqaalka sawirrada markii ay ku sugnaayeen saldhigga. duulimaadkani tababarka ahaa waxaa la doonayay inay ka soo kasbadaan khibrad heer sare ah oo la xidhiidha hagista duulimaadka. dariiqa ay isticmaalayeen ayaa ahaa 316 nm oo dhanka bari kaga beegan Florida waxaana qorshe u ahaa inay ka soo wareegaan jasiiradaha Bahamas kadibna ay dib ugu soo laabtaan saldhigga ay ka duuleen ee Florida. 20 daqiiqo gudahood ayaa ay gaadheen bartilmaameedkii koowaad iyagoo halkaasi ku sameeyay dhoolatus duqayna oo ay dhowr bamba ku tuureen biyaha. hase yeeshee lugtii labaad ee howlgalka saacad iyo bar markii diyaaraduhu hawada ay ku jireen ayaa taliyihii hogaaminaya duulimaadkaasi oo lagu magacaabi jiray Captain Charles Taylor waxa uu ogaaday in dhibaata ay haysato diyaaraddiisa gaar ahaanna khadka ay ku duulayso oo aan sax ahayn. waxa uu la xidhiidhay xaruntii taliska isagoo markaasi la weydiiyey jiheeyaha uu isticmaalayaa waxa uu sheegayo balse waa uu awoodi kari waayay inuu garto jiheeyaha tilmaantiisa balse waxa uu sheegay inuu sheedda ka arka jasiirado
taasi oo tilmaamaysa jahawareer ku dhacay sarkaalkaasi. Does your compass read? I don't know where we are. We must have got lost after that last turn. What does your compass read? I am lost at present time. I'm over small islands. Believed to be the Florida Keys. xarunta raadiyaha ciidamada cirka ayaa waxaa xiriir uu la sameeyey duuliyaha diyaaradani jahawareersan, waxaana la weydiiyey inuu akhriyo waxa ku qoran jiheeyaha diyaaradda si markaasi loo caawiyo. I'm sure now that neither of my compasses are working. welina waxaa muuqata caqabad ku saabsan inay wax isla fahmaan duuliyaha iyo saraakiisha ku sugan saldhigga ciidamada ee xiriirka la sameynaya diyaaradda. khubaraduna waxay sheegeen in diyaaraddu ay saacaddiiba isticmaalaysay 17 gaalon oo shidaal ah. We will fly 270 degrees until we hit the beach. We'll run out of gas. All planes fly close formation. When one plane drops to 10 gallons of gas, all planes will land together. We have no other land in sight. waxaana sii korodhay qayladhaanta sheegaysa in diyaaradda wax kastaaba ay ka sii dhammaanayaan, taasoo uu soo gudbinaya duuliyaha diyaaradda maqan. xiriirkii ugu dambeeyey ee laga duubayna waxa uu ahaa isaga oo sheegaya in diyaaraddu ay u muuqato inay hoos u degayso oo ay u sii dhacayso dhinaca badweynta. Past 7, a final faint radio message was heard. Fox Tare. Fox Tare. Fox Tare. waa khadkii telefoon ee u dambeeyey ee ay la yeeshaan saraakiisha ku sugan saldhigga laga hagayay diyaaraddaasi. wixii ka dambeeyena waxaa la waayey khadkii diyaaradda. sida caadiga ah ciidamada cirka ee Maraykanka, haddii sidan oo kale ay dhacdo, waxaa waajiba in markiiba la bilaabo howlgal baadigooba. waaba intaasoo la arkee diyaaraddii oo badweynta dul sabaynayse iyadoo ay cimilo xumi jirtay xilligaasi. haddana waxaa la kiciyaa 242 diyaaradood si ay uga qayb qaataan baadigoobka duuliyaha maqan iyo diyaaraddiiba, kuwaasoo maalmo dhowra ku howlanaa howlgalkaasi oo lagu ballaadhiyey guud ahaan saddexagalka baaxaddiisa. The weather did get bad. There was a front that came through, the wind changed, but for the first day we went out, we expected to see them floating out here. cimiladu way xumeed markii aanu duulnay. waxaannu filaynay inaannu helno diyaaraddii luntay oo biyaha dul sabaynaysa, balse waxaannu aragnay ma jirin. To see them floating out here. The TBM really was a good steady airplane. diyaaradda TBM waxay ahayd mid aad loo tijaabiyey oo xitaa haddii ay badda ku dhacdo waxay awood u leedahay biyaha guudkooda inay ku degto oo ay dul sabayso. balse malaayiin square mile oo badweynta markii ay gaafureegeen boqolaalka diyaaradood ee loo diray hawshaasi, mana jirin wax natiijo ah oo ka soo baxday howlgalkaasi. The flight never, to anybody's knowledge, made it back to land. No trace was ever found in an intensive search. welina waxaa taagan su'aalo ku saabsan maxaa ku dhacay diyaaraddii hagaysay duulimaadkii 19aad, waxaana dad badan markaasi ay rumaysnaayeen jiheeyuhu inuu ka khalkhalay oo dabadeedna ay ku dhacday meel aan ahayn goobta laga raadinayo. codadkiisii ugu dambeeyey markii jahawareerku hadheeyeyna waxaa duuliyuhu yidhi, waxaan dul marayaa jasiirada aan u malaynayo inay yihiin kuwii Florida oo dabcan uu muuqaalkooda hore u yaqaanay. I'm over small islands, believed to be the Florida Keys. khubarada baaritaanka ayaa qaarkood waxay ogaadeen in jasiiradda markaasi uu sheegayey aanay ahayn Florida, balse loo malaynayo inay ahayd mid 200 mayl ka fog jasiiradda Bahamas. su'aalaha kale ee la isweydiiyena waxaa ka mid ahaa, maadaama duuliyaha lumay ee diyaaraddiisu ay hogaaminaysay 4 diyaaradood oo kale oo tababarkaasi ku lug lahaa, maxay diyaaradaha kale u daba socdeen 10 mayl ka hor intii aanay ka hadhin? David White waxa uu aaminsan yahay in diyaaradaha kale ay wadeen arday duulimaadka lagu tababarayey, kuwaasoo ay ahayd inay daba socdaan hogaamiyaha duulimaadka oo markii u dambaysay la waayey maadaama isagu uu ahaa nin khibrad leh 10 saacadood oo duulimaadana hore u sameeyey. He's the senior man. You know, he's got thousands of hours in the air, and the students follow the leader. That's what they're taught to do. intii lagu jiray baadigoobka Bermuda waxaa dhacday masiibo kale. mid ka mid ah doonyaha duula oo baadigoobka qayb ka ahayd ayaa burburtay iyadoo ay saaran yihiin 13 ciidana. doonida oo ahayd nooca awoodda u leh in sida diyaaradahoo kale ay u duusho, haddana ay dul socon karto sida doonyaha badda guudkeeda. markii cid ugu dambaysay waxaa la maqlay jug culus oo qarax u muuqatay, balse lama maqal meel ay ku dambaysay raq iyo ruux.
baaritaankii hordhaca ahaa ee laga soo saaray duuliyaha iyo diyaaradda uu saarnaa ee la waayey khubaradu waxay ku sharaxeen arrinta in duuliyaha lagu magacaabo Lieutenant Tyler uu miyir beelay oo uu kala garan waayey meel uu joogo, taasi oo macnaheedu yahay in xogtii uu sheegayay aanay ahayn mid sugan. balse baaritaankii ugu dambeeyey ee lagu soo gabagabeeyey xaajadaasi waxaa khubaradu ay meesha ka saareen waalida lala xidhiidhiya duuliyaha, waxaana ay sheekada ku soo gabagabeeyeen inaan cidna ogaan karin waxa ku dhacay duuliya Tyler iyo diyaaraddiisii. dhinac kasta oo ay baaritaanka ka istaageen waxa ay sheegeen in awooddooda ay ka badan tahay oo aanay ogaan karin sida Maraykanka uu diyaaraddaasi ku waayey. hadallo kutirikuteena ayaa si weyn adduunka ugu faafay oo ku saabsan duuliyaha diyaaraddaasi ee la waayey ee ku dhacday Bermuda. dadka qaar oo ninkan odayga ahi ka mid yahay waxay rumaysan yihiin in duuliya Tyler uu weli nool yahay isagoo ka badbaaday diyaaraddii, maadaama uu aaminsan yahay diyaaraddaasi nooceedu ahaa haddiiba badda ay ku dhacdo mid sabayn karta. isla markaasina waxa uu sheegayaa in qiyaastiisa uu ninkaasi Tyler uu ku nool yahay jasiiradaha fogfog ee Bahamas, oo laga yaabo halkaasina inuu gabadh ku guursaday. waa sida niyaddiisa uu ku hayee. Taylor has survived. The Bahamians picked him up, and I think he would have been. He finally married an island woman, and waxaana uu sheegay mar kasta oo xilliga xuskiisa la gaadho inuu taasi niyadda ku qabto. December, when they have the memorial service, I look around. weli waxaad mooddaa in la moog yahay mucjisada aan la ogeyn ee Bermuda. diyaaraddaasi ayaana sababtay in indhaha adduunka ay ku soo jeestaan mucjisada Bermuda ee dad badan aanay ka warqabin. iminka oo markii arrintaasi ay dhacday laga joogo ku dhowaad 60 sannadood, weli su'aalo arrintaasi ayaa ka taagan saldhigga cirka ee loo yaqaano Fort Lauderdale oo markaasi ku yaala gobolka Florida ee dalka Maraykanka, iyadoo markaasi sannad walbana laga xuso duuliyahaasi maqan ee la tuhunsan yahay markaasi in Bermuda ay jiidatay oo diyaaraddu halkaasi ay kula dhacday, iyadoo aanay jirin war saxa oo Maraykanku markaasi uu ka hayo duuliyahaasi maqan. jasiiradda Bermuda wararkeedu waxay soo bilaabmeen qarniyo hore. tusaale ahaan, sahamiyayaashii dunida casriga ah markii ay isku dayeen jasiirado ay Bermuda ka mid tahay, waxay kala kulmeen codad argagax leh oo xilliga habeenkii halkaasi ka soo yeedhaya, waxaana ay sahamiyayaashu u bixiyeen Bermuda jasiiradda shaydaanka. New World explorers used to call this the Isle of Devils because of the awful screams and sounds that would emanate from the island, and especially at night. wixii ka dambeeyey 1955 saddexagalka Bermuda waxaa jira dad badan oo qarinkooda u qaatay caqligana ku mashquuliyey inay ogaadaan mucjisada Bermuda oo ah meel ay ku hoobteen diyaaradaha iyo maraakiibta dunidu. dadkaasina waxaa ka mid ah Gian Kusar oo mareegdhan amaba website u sameeyey inuu ku ururiyo waxa laala wixii ay liqday Bermuda iyo xogta la xiriidha. mar sababta la weydiiyeyna waxa isaga laftiisu uu sheegay inay adag tahay inuu sharaxaad ka bixiyo mucjisada ku dugan Bermuda ee ay kaga duwan tahay badaha kale ee dunida. See if it was still going on. It's hard to say. That's why there's the great mystery of the triangle. celcelis ahaan sannad walba Bermuda waxay liqdaa 60 markab iyo 5 diyaaradood. waana mucjiso waagii baryaba taagan oo u baahan in salkeeda la soo ogaado, ayaa uu yidhi Gian Kusar. It's a mystery. It's a real-life mystery. It's a real-life detective story, and you're going to want to find the answer. arrinta la yaab kale waxa weeye meesha liqda maraakiibta waxay aad ugu dhowdahay marka loo dhaqaaqo amaba loo dhowaado dhinaca jasiiradda Bermuda oo ku taala meel dhulweynaha Maraykanka u jirta 650 mayl, halkaasoo xataa lagu waayo maraakiib culculus oo kuwa xamuulka qaada iyo noocyo yaryar oo kale. Some of the greatest mysteries have actually happened around Bermuda. Some of the biggest vessels, like Sylvia El Osa, 1976, was a 590-foot vessel that apparently blew to pieces after she signaled herself 140 miles from Bermuda. Bermuda waa jasiirad qurux badan oo jawigeeduna uu yahay mid kulaale xigeena. waxay leedahay xeeb qurxoon, waxaana ay leeg tahay 3 meelood oo meel baaxadda magaalada Washington DC.
dadka jasiiraddani ku nool waxaa lagu qiyaasaa 65,000 oo qof waxaana halkaasi booqda nus milyan dalxiisayaala oo Maraykan u badan kuwaas oo halkaasi ku taga maraakiibta dalxiiska. I love it here. I love the beach. The water is gorgeous. haddii aad ka mid tahay dadka u dhashay jasiiradda iyo haddii aad safar ku tahay labadaba waa uu ku salaamayaa waana u caado inuu isa soo taago waddo mashquul badan waana mid ka mid ah dadka caanka ah ee jasiiraddani jooga Mr. Johnny Bain. Tobanaan sannadood ayaa uu halkaasi ka salaami jiray dadka isla goobtii uu istaagi jiray ayaa taalo looga dhisay. xilliga jasiiraddani Bermuda waxay hoy u tahay xayawaan badeed dunida kale ku yar waxaana aad u xiiseeya halkani inay tagaan dadka biyaha quusa. inkastoo ay jiraan xayawaanno halis badan oo aan loo dhowaan karin haddii aanay jirin wax kaaga gudban iyadoo ay jiraan meelo lagu daryeelo xayawaannada kala duwan ee badda oo dalxiisayaal badanna soo jiidatay. waxaana xarun ka mid ah xarumahaasi aasaastay Genever oo ka mid ah dadka jasiiraddani ku dhashay kuna barbaaray. waxay aaminsan tahay in jasiiraddaasi Bermuda ay tahay meesha dunida ugu wanaagsan uguna quruxda badan leh. The most beautiful place on earth because we're an oceanic island surrounded by pristine warm waters. waxay tidhi waa meel aad iyo aad u qurxoon oo biyo diiran ay ku wareegsan yihiin oo aan rabshad iyo xasarad toona lahayn. Not a lot of poverty, there's not a lot of crime. It's just a very exquisite island. intii aanay Bermuda caan ku noqon dhinaca dalxiiska oo malaayiinta qof aanay baranin booqashadeeda waxay ahayd meel ay cabsi ku gadaaman tahay oo dadku ay ka fogaadaan inkastoo la ogaaday in codadka cabsida leh ee la maqlo xilliga habeenkii ay yihiin shimbiro aan joogin dunida inteeda kale oo jasiiraddaasi ku nool oo jabaqdaasi sameeya xilliga habeenkii waxaana cida shimbirahaasi laga maqlaa jasiiradda oo dhan. Very rare bird that's known only to Bermuda. dalxiisayaashu inkastoo ay hore u baqli jireen wararka naxdinta leh ee la xiriira Bermuda marka la sheegayo in markab ay liqday amaba diyaarad ay ku dhacday markan waxay rajaynayaan in iyaga arrintaasi ay ka nabad galaan oo maraakiibta amaba diyaaradaha ay ku safri doonaan aan la waayin sida kuwii hore. Planes disappear and ships disappear and, you know, all the stuff that you hear on television through movies. But we're hoping that we're not going to be one of those subjects. We don't want to disappear. We want to enjoy the rest of our lives. Bermuda inay ka durugsan tahay bariga intiisa kale waxa u dheer inay tahay meel godan amaba bad aad u gundheer. Jasiiraddani waxay ka samaysan tahay foolkaane ka soo kacay badda gunteeda oo dibadda u soo baxay. waxaana dhararka hoose ee gunta badda marka laga soo cabiro uu leeyahay dhararka jasiiraddani ilaa 1 mayl. inkastoo Bermuda, Bahamas iyo Florida ay yihiin xeebo qurxoon oo soo jiita dalxiisayaasha haddana waqtiyada qaarkood saddexagalka Bermuda waxaa ka dhaca duufaanno xoog badan oo saameeya dhammaan jasiiradaha ku wareegsan. waxaana loo sameeyay xarun darista cimilada saddexagalka Bermuda sida uu sheegay Jim Lushin. Hurricanes are very frequent out in the Bermuda Triangle area. duufaanadu waa u caada saddexagalka Bermuda haddiiba ay duufaanno dhacaan waxay u daran tahay maraakiibta badaha gooshaysa oo dabaylaha xooggani hadba dhinacay kaga dhufanayaan. The mariner may not know which way to look. Sometimes the weather may be coming from one direction, sometimes it may be coming from the other direction. magaalooyin badan oo u dhow xeebaha saddexagalka ayay burburisay duufaantu. hilaaca iyo danabka ayaa sidoo kale ah kuwa xoog badan. khubarada qaar oo weli ku jahawareersan mucjisooyinka saddexagalka Bermuda
ayaa rumaysan in hilaaca iyo danabka ka dhasha ay markaasi sabab u yihiin in maraakiibta amaba diyaaradaha la waayo oo halkaasi ay ku hobtaan. arrimaha kale ee loo aanayn karo waxaa ka mid ah dabaylaha wareega ee biyaha xambaarsan oo inta badan ah kuwa ka soo kaca dhinaca saddexagalka, waana daruuro wareegsan oo khatar badan, kuwaasoo gudaha Maraykankana looga yaqaano tornado amaba water spout, waana dabaylo xagga sare roob uga eeg, balse waxaa jira biyo si dhuuban u wareegaya oo markaasi isku qotomisa dhulka ilaa baarka sare ee daruurta, taasi oo burburisa dhammaan meelaha ay marto oo dhan. khubarada qaarna waxay ku doodayaan in dabaylahaasi kor isu taaga ee wareegaya inta aanay soo gaadhin barriga ay badda ku soo jiidhaan maraakiibta amaba diyaaradaha, taasi oo dadka qaar ay u arkaan sharaxaad macquula. haddii ay dabaylaha tornado ay xilliga habeenkii kaa helaan dhinaca badweynta, waa halis, waayo waxay gembiyi karaan maraakiibta iyo diyaaradaha labadaba. sidaasina waxaa yidhi Jim Addis oo muuqaala ka duubay dabaylaha tornado oo markaasi bilaabmaya. If you're out there at night and a water spout develops, it can flip your vessel over. And if it's a tornadic water spout, the really big water spouts, the strong ones, the ones with high velocity, you may not see that. waxaa kaloo jira halis kale oo ka jirta gudaha Bermuda. That jack up the waves a lot higher than what you're used to. waa mawjado waaweyn oo dusha ka mara dhammaan maraakiibta iyo qalabka kale ee badda lagu maro, kuwaasi oo aan loogayn sifaha degdega ah ee ay ku bilaabmaan. aan eegno dhinaca kale ee saddexagalka, waa jasiiradaha Bahamas. quruxda iyo soo jiidashada dalxiisayaasha way kala siman tahay Bermuda iyo Puerto Rico. ilaa iyo 4 milyan oo qof ayaa booqda sanadkiiba. balse jawigeedu maaha mid joogta. saacad walbana waxaa la filan karaa dabaylo inay kacaan, kuwaas oo halis geliya doonyaha dalxiiska. sidaasi awgeed, jasiiraddani waxay leedahay ciidan ka shaqeeya samata bixinta oo u gurmada marka ay qayladhaan ka soo yeedho dhinaca badda. It often means coastal boating can be quite dangerous. Mayday, mayday, mayday. This is the vessel. Try again. We're in need of immediate assistance. Vessel hailing Mayday. This is Bahamas SC Rescue Nassau. xubin ka tirsan ciidankaasi waxa uu aaminsan yahay in badanaaba dadka la waayo ay sababto farsamo xumo amaba khalad dhinacooda ka yimaada. kuwa kalena waxa uu sheegay inay saameeyaan mawjadaha kacsan ee ka jira saddexagalka Bermuda. My own opinion is that although you don't know exactly what happened in every case, I think almost every case is explainable by human error. I mean, there are so many ways. inkastoo arrimaha halkaasi ka jira ay yihiin farsamooyin rabbaaniya, ayaa haddana khubarada caalamiga ah ee dhinaca sayniska ku xeel dheer waxaa markaasi ay isku dayeen inay ka gungaadhaan cilmiga meeshaasi ku jira, waxaana ay sameeyeen macad baaritaan oo markaasi ka war doona sagxadda hoose ee saddexagalka Bermuda si markaasi loo ogaado halka ay ku dambeeyeen maraakiibtii iyo diyaaradihii ay liqday Bermuda. waxaana la soo helay kumanaan walxood oo u badan kuwa dadku ay isticmaalaan iyo maraakiib badan oo ku aasmay gunta hoose ee badda. baaritaanada dhinaca cilmiga ayaa markan waxaa la isku dayayaa in jawaab loogu helo sababta maraakiibta iyo diyaaraduhu ay ugu dhacaan Bermuda. Mr. Ralph Richardson, agaasimaha macadkaasi baarista salka hoose ee saddexagalka Bermuda, waxa uu ka hadlayaa sababta ka dambaysa mucjisooyinka Bermuda. There are some scientific theories about the Bermuda Triangle. One includes large pockets of gas, which, because of seismic activity and so on, escape from the ocean's bottom. waxa uu yidhi aragtiyaha sayniska ee laga soo ogaaday halkaasi waxaa ka mid ah in kayd badan oo gaasa amaba hawooyin ah uu ku jiro badda hoosteeda, taasi oo keenaysa in gaasku uu sababo gariir amaba gadgadoon, kaasi oo biyaha soo jiidhaya. mawjaduhu marka ay rogmaanna ay taasi keenayso jawi kacsan oo dhinaca badda ah. And a large pocket of gas just surrounds it. The ship then loses its buoyancy and disappears from sight without warning. That is one of the theories of the Bermuda Triangle. saynis yahano kalena waxay sheegeen inay ogaadeen in dhibco hawooyin ah oo aad u badan ay ka soo firfidlaynayaan amaba ay ka soo boodayaan gunta hoose ee saddexagalka,
hawadaasi oo biyaha dhex maraysa ayaa luminaysa cufnaanta biyaha badda looga baahnaa iyadoo goobo ka mid a saddexagalkana ay si aada ugu badan tahay hawada amaba gaaskaasi taasina ay keentay maraakiibtu marka halkaasi ay dul marayaan in si fudud ay u quusaan iyagoo aan xitaa helin fursad ay ku diraan farriin qayladhaana oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen waxaana ay ku degaan amaba ay ku quusaan ilbiriqsiyo sidii inay jar ka dhaceen oo kale taasina waxay keentaa in hal mar sanqadh laga waayo oo dhammaan xidhiidhada oo dhan ay go'aan ilaa iyo hadda hal ceel oo riiga ayaa laga qoday halkaasi si markaasi uu u soo nuugo gaasta loo yaqaano methane ee ka soo boodaysa amaba ka soo firfidhlaynaysa gunta hoose ee badda taasi oo loo aanaynayo in maraakiibta ay dejinayso balse su'aashu waxay tahay dhibcaha hawada ah ee markaasi ka soo baxaya badda gunteeda miyay dejin karaan markab ballaadhan oo ah kuwa xamuulka qaada Let's imagine a body that's floating in water. The reason it's floating, a body that's heavier than air. Bruce DiNardo, oo ah professor ku xeelar cilmiga fiisigiska, ayaa sharaxaya tijaabada arrintaasi in haddii hawada ay ku badato biyaha badda, taasi ay horseedi karto maraakiibtu inay degi karaan iyo in kale. Waxa uu soo diyaariyey weel biyo ay ka buuxaan, weelkaasi oo salka hoose ay kaga xidhan yihiin tuubooyin badan oo hawa ay ka soo baxayso, waxaana uu biyaha ku dhex riday oo uu dul saaray walax bira oo markaasi miisaan leh inta aanu furin qasabadda hawada ee tuubooyinkaasi ay ku xidhiidhsan yihiin waxaad aragtaa in birtaasi aanay degin oo ay si caadi u dul sabaynayso biyaha haddaba marka hawadaasi lagu furo biyaha dhibcahaasi hawada ah ayaa waxa ay dhex marayaan biyaha ilaa xagga sare ay ka baxaan marka hawadaasi ay bilaabanto walaxdii birta ahayd ee markii hore sabaynaysay waxaa kuu muuqanaysa inay si fudud u degtay oo ay tagtay gunta biyaha. And eventually we get to a critical point where the ball sinks. bal mar kale u fiirso marka qasabadaha hawada la xidho walaxdii cufnayd kor ayay u soo baxaysaa sababtuna wax kale ma aha marka biyaha lagu furo hawada tayada cufnaantooda ayaa yaraanaysa waanay kala furfurmayaan hawadan dhex maraysaana waxay abuuraysaa jaanisyo ah meelo bannaan. You lower the density of the water. The bubbles take up space. The volume of the water will expand, but the mass of the water stays the same. So the buoyant force will decrease. haddii badda gunteeda ay ka soo baxaan hawooyin amaba gaaska loo yaqaano methane markab iyo wax kasta oo badda dul sabaynaya waa uu degayaa weliba si fudud oo degdega waana taas xaaladda loo malaynayo inay ka jirta Bermuda ee maraakiibta ay ugu hoobanayaan. In the ocean, there is something like a methane eruption. The source of bubbles will be localized. They will rise, but there'll be water outside where there are no bubbles. But the fact that it can sink there is, to me, that's proof that a ship can sink in the ocean. I don't need to say, I wouldn't even say theoretically. I mean, it is possible that bubbles from the ocean floor can sink a ship. inkastoo saynisyahanadu ay bixiyeen sharaxaadani haddana waxaa jira sheekooyin kale oo muujinaya awoodaha qarsoon ee ka jira Bermuda si kastaba ha u dhacaane biyaha saddexagalkani waxay noqdeen wadka maraakiibta iyo diyaaradaha shilalka goobtani ka dhacaana waa ay ka badan yihiin kuwa ka dhaca badaha kale ee dunida tira male diyaaradaha iyo maraakiibta sida ay u socdeen hal mar uun la waayey iyagoo aan soo sheegin wax cilada oo markaasi ku timi oo ay liqday saddexagalkaasi sida uu sheegay Chiang Kusar. What sets the triangle apart from other oceans is that there is a higher number of disappearances of both ships and aircraft in the area. There is no SOS usually. There's no electronic maydays issued. There's no trace found in most instances. waxaa jirta sheeko kale oo mucjiso leh oo la xidhiidha in jawiga amaba hawada sare ee Bermuda ay leedahay magna diyaaradaha khalkhaliya oo laga yaabo in jihada uu ka lumiyo dadka qaarna ay aaminsan yihiin inuu afduubo diyaaradaha. The electromagnetic phenomena are capable of causing dimensional transmutations and time warps, time tunnels. They're all reported out there. arrintaasi waxay ku dhacday diyaarad dul martay saddexagalka Bermuda iyadoo markaasi ku socotay waddanka Mareykanka. Mr. Boris Chernan waa maalqabeen ku nool magaalada Andres
oo ku taalla jasiiradaha Bahamas. Muddo 30 sannadooda ayaa uu mar kastaba duulimaad ku dulmaraa Bermuda isagoo u kala safrayay madaarka Andres ee Bahamas ku yaala iyo magaalada ku taalla xeebta Mareykanka ee loo yaqaan Palm Beach. Maalin maalmaha ka mid ah oo ku beegnad 1970kii ayaa isaga iyo aabihii waxaa sidii caadiga ahayd ay u duuleen magaalada Palm Beach ee dalka Mareykanka. Sida caadiga ahna duulimaad kasta waxa uu qaadan jiray ilaa saacad iyo badh, balse maalintaasi waxa dhacday wax ka duwan wixii ay yaqaaneen. Cimiladu way fiicneed markii duulimaadku uu bilaabmay, waxaana hawada ay galeen 3 galabnimo. A lenticular cloud that was hovering over the Great Bahama Bank, at least 60,000 feet high, and my airplane wasn't capable of flying over it. Markii dhulka ay kor uga kaceen qiyaastii 600 feet, waxay la kulmeen daruuro cufan, hilaac fara badan. Intaasi wixii ka dambeeyayna waxay arkeen daruurta oo kala jeexantay. wax yar kadibna daruurta ayaa isku gadaantay jihadii ay u socdeen. Marka laga reebo god amaba dalool hortooda ku beegan oo daruurta ka soo dhex muuqday, isla halkaas ayaanay isku dayeen in diyaaradda ay ku beegaan, balse waxa ay ku noqotay dalluun dheer oo muddo ay ku dhex jireen. Diyaaradduna waa ay gariirtay iyadoo hadba dhinac isu rogaysa. Mararka qaarkoodna waxaabay arki waayeen jihada ay u socdaan, iyadoo muraayadda aanay waxba uga muuqanin. Saacadaha wakhtiga sheega iyo jiheeyaha diyaaradda ayaa dhammaantoodba khalkhalay oo shaqayn waayey. Sidoo kale diyaaradda ayaa laga waayay khadka raadaarada ee lagala socday duulimaadkeeda, waxaana markaasi loo diiwaangeliyey diyaaraddaasi in la waayey. We were caught inside this strange fog with the instruments malfunctioning and the air traffic controller unable to help us. And then the air traffic controller came back on the radio screaming that he had an airplane directly over Miami Beach. Khalkhal iyo walaac ayaa soo food saaray isaga iyo aabihii, balse waa ay ka badbaadeen waxaana ay heleen hawo nadiif ah. Waxaa sidoo kale ay dib ugu soo noqdeen raadaaradii. waxyaabaha mucjisada ku noqdayna waxaa ka mid ahaa wakhtigii duulimaadkooda ee qaadan jiray saacad iyo badh oo si lama filaana u soo gaabtay muddo 45 daqiiqo oo kaliya ayay u kala socdeen Mareykanka iyo Bahamas. And the flight took only 45 minutes. And I'd made that flight dozens of times before, and it always took about an hour and 20 minutes, sometimes an hour and a half. kooxaha haga diyaaradahuna waxay u sheegeen markii uu soo caga dhigtay in diyaaraddiisa la waayay muddo oo raadaarada oo dhan ay ka maqnayd, balse waxaa maskaxdiisa ka degi weyday masaafada u dhaxaysa Mareykanka iyo sidoo kale Bahamas oo inta badan ku qaadan jirtay saacad iyo badh. Sababta 45 daqiiqo oo kaliya ay ugu qaadatay duulimaadkaasi cabsida badnaa. Wixii maalintaasi ka dambeeyana waxa uu bilaabay cilmi baaris uu ku doonayo inuu ogaado sida ay ku abuurantay khatartaasi ay ka badbaadeen iyo sababta wakhtigaasi kooban uu ugu socday Mareykanka. Waxyaabaha uu ogaadayna waxaa ka mid ah inuu jiro magnat jihawareeriya diyaaradaha oo diyaaraddiisana u horseeday inay gabi dhaclayso oo ay qabsato wadda aanu weligii marin. Just didn't make sense until I started researching time and what it can do in the Bermuda Triangle. waxa uu hadda qorayaa buug uu kaga hadlayo wixii uu la kulmay iyo xogihii baaritaankiisa uu ku soo ogaaday, balse ilaa iyo hadda waxaa jira jawaabo ka maqan oo uu isweydiinayo sida ay ku dhacday. Miami, Bermuda, Puerto Rico iyo Bahamas inkastoo ay yihiin bartilmaameedka dalxiisayaal badan, haddana weli waxa ay leeyihiin mucjisooyin rabbaaniya kuwaasoo u gaara saddexagalkaasi. khalkhal ku yimaada duuliyayaasha, biyaha wareegsan ee khatarta badan, duufaanta hurricane, mawjadaha qarada weyn ee wax quusiya, hilaaca danabka ah ee dhawaaqa culus, gaasta amaba hawada ka soo baxaysa badda gunteeda, magnatka jihawareeriya diyaaradaha, iyo wakhtiga sida mucjisada u soo gaartay. dhammaan qodobadaas aynu soo tilmaannay waxay ahaayeen sharaxaadda ay cilmi baarayaasha saynisku ay markaasi u malaynayaan inay sababayso mucjisada Bermuda. si kastaba ha noqotee waxaa meesha ka muuqata awoodo rabbaaniya oo bani aadamku aanay weli xaqiiqo u haynin, sababta uu saddexagalka Bermuda u noqday qabriga diyaaradaha iyo maraakiibta dunida. daawadayaal, intaasina waxaanu ku soo koobaynaa barnaamijkeenii amuuraha caalamka.